ciyaartaasi Old Trafford ka dhacday waa guuldaradii toddobaad ee United soo gaaraysa 9 kulan ee ugu dambeysay waxaana ay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badnaa ee la wada sugayay macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa qaab difaaceed kulankan ciyaarayay Pep Guardiola waxa uu ciyaarta ka dhigay weerar markii Leroy Sané uu ku bedelay Fernandinho qaybta dambe ee ciyaarta laba gool oo soo dhacay qayb dambe heleen inkastoo United weerar badan oo counter attack ay heleen xidigahooda Rashford iyo sidoo kale xidiga kale Lingard lagu magacaabo oo isna weerarka ka ciyaarayay inkastoo xidiga badan uu keedka geliyay waa mid kamid ah kulamo si weyn muhiim ugu ah Pep Guardiola kadib sabtidii uu Tottenham ka soo gudbay waxaana hadda Liverpool ay u muuqataa in ay adag tahay in la hakiyo kooxda Manchester City oo rajo weyn Liverpool ka qabtay in kulankan lagu dhigi doono shibraale barnaamijka laga yeelo shibraale ku soo barnaamijka kulan aad u adag ayuu ahaa oo arbacadii dhacay labada kooxood Manchester City guusha u qalantay Soma aad iyo aad runtii ciyaartaan markaa fiirisay xamaasad darbi lahayd qaybta hore waliba daqiiqadaha hore qof walba rajo ka gashay in Manchester ay wax sameyn karto ama damage keeni karto oo yaraan hadii san badan rajo keeni karto agaag shibraale ku soo noqon doona laakiin waxaa malaysaa in kulanka Manchester United ay ku soo talagashay in qaab bareejo ah ay u ciyaarto markaa fiirisid qaldaneed markii bareejada ciyaarto markaa fiirisid Ibrahim waxay Manchester United firfircooniyay la soo baxday home waaye oo jeedada daqiiqadaha hore Brunigas company isku dhigay iyo jaale qaateen Man City iyo xogaa rajo firfircooniya jirtay haddana Ibrahim rajadii firfircoonida qaybtii hore meesha soo dhaafin qaybtii hore close waxa la close the ball ay wax la sameeyeen Brunigo lagu soo dhawaado raacashada waxay ka dhigeen aggressive Manchester United laakiin Ibrahim marka la gashay shaatiga la gashatid team ka fiican su'aasha ugu weyn is weydiinayso waxa waaye 90 daqiiqo dagaal neefta ma keeni kartaa haddaad keeni karin ma ahan tacticada inuu macallinku soo galo waa inuu wax walba dhaqaaleysto sida kooxaha yar sameeyaan kooxaha yar waxay diidaan Manchester City qoobka 90 daqiiqo ma leeli kartaa may 70 banjare 60 banjare 30 daqiiqo oo waxa imaanayso sidii la rabo laga yeelanayo oo ceeb weyn keeni karta oo dambe ciyaarta hadda 60 aariyada ku dhamaato adka hor xasuusta Juventus iyo Real Madrid final isku imaadeen Juventus neefta ku yareed daan alfasi ku hasadheelay halay dhalay Real Madrid dhalisay Juventus waa iswaashay halkii keentay waa iswaashay 60 wixii ka dambeeyay maamulka dhan Real Madrid gacanta u galay afar ma laga dhalinaa saddex ma laga dhalinaa ka dhacday ciyaarta soo I think saddex hal may ku dhamaatay saddex hal ku dhamaatay laakiin niyajabna xadin leeyahay dadkii dhan taageerayaashii tuseen Juventus ciyaartoydii inay Real Madrid la soo bareejin karin inay gool ku sii darto ma ogiye marka waxa fiican tactical game-ka level-kaaga marka u bixaysid at least qoobka la gal laakiin level ka sareeya neefta loo dhaqaaleystaa taasna Manchester ma sameeyeen ciyaartan farqiga markii la fiiriyo labada gool oo ka dhashay oo laba gool ayaa xataa lagu eedeynaa Dekhaya inkastoo marka hore fursado badan badbaadiyo fursadan ay kamid tahay Bernard haddana labada gool xogaa nasiib ku jira ma la dhihi karaa runtii Bernard goolkiisa oo kale gool lagu cusub ma ahayn wuxuu sameeyaa midigtu ka imaada saan u qaataa wuxuu iska dhigaa nin luuqaas rabo wuuna ka dhalin jiray atin Arsenal season ku dhaliyay hadda marka bodigaaga xaq u badisid ama porteerigu arkino xaq jiro farlaab dhulkan soo ku waxada marka mar reflection ay ugu dhalataa Tottenham oo kale inay reflection ugu dhalataan jeclaa gool saas oo kale ha marna diritay waaday hadda marka goolkaas khalkiisa waxa kale Lucas Shaw hadda dhaafisid goolkaas gaarsiisid oo kale Lucas Shaw oo kale bodigiisa muusan maxaa la isma nuxjin oo la yaabay Benoni adoo baloogaaya marka Benoniga baloogiisa Ibrahim shoot la soo gelinayo at least ina lugtaada meesha dhigtid waaye hatta reflection markuu ku dhasho macallinku uma eedeynay laakiin haddaadan bodiga dhanba gamin Dekhaya ku halay Dekhaya sidaan sheegay luuqaas kale uu u maleeyay kan bidix waaye kulkan uu tagi doona laakiin Man United qaabka uu soo gala macallinka sidoo aragtaa afka Rashford Lingard u dhigtay inta kale difaaci ayeen Young Central-back lagu daray saddexda dambe Damian oo amahan aan ciyaarin waagi Mourinho u dambeysay uu soo safay Pereira wuxuu ka doorbiday McTominay Matic sidoo kale uu fadhiyay ama sidoo aragtay shaxda ku soo galay Ibrahim team kan oo tabar darro heeso xagga neefta isfahanka
حسليه سولشنا حساب كله وطا او سي وريرنس تيمك يعني لابا waxaa meesha isbiirsaday Solskjaer oo aqli ku soo kordhin waay teamkan iyo teamko liita confuse waay waa sa sheegaysa darmaan sanadkan ma dheerin darmaan aan sanadkan waagi Fangal ay ugu dambeysay Mourinho ma sabtaan safishin darmiyaan aan ma arkin darmiyaan maanta ciyaartan big game-ka ku aamin waxaan u maleynaa wax oo basically macallimiinta yaryarka waxa yar watan ay fahmi karaan waay marka aniga sida hore u sheegan taaganahay maalin kasta Solskjaer wuxuu isi cadeynaa meesha inuu wax ku baran rababa meeshan wax barasho inuu wax baro loo keenay ciyaalkan laakiin waxa kale oo sidii kara bacteria laftirkiisa bacteria lagu wareeray ashliyaanka iyo darmaan kula bacteria ku jiraan Lindelof iyo Ismail meesha taagin waa garan waay ashliyaanka soo baxay miya Ibrahim markay saan oo kale xaaladdu kugu xuntahay 4 ibr laga dhalinaayo 2 ibr laga dhalinaayo at least adiga DNA-gaaga dhumin waxaaga la imo 433 waa intaas oo banooni kugu sharaftaa waa intaas oo nimankan position kale oo hadda duleelo oo wareersan la soo kabaa cunuga dialogue uu fiican yahay number 2 waay ashliyaanka murna laga keenay jeebka ma ku wadataa bixi ashliyaanka wuxuu soo sixilaayahay kubadda 45 ka la keeno iladaas wiligiis uu lahaan jiray wuxuu gaarsiinaa calanka kale calankaanu ka karosa calanka kale uu gaarsiinaa marka waxaas dhila Pogba boos ku dheelay ma cadda labadan Rashford sagaal uu geeyay ciyaartan Martial kala wareegooda noocee waay Lindegaard intuu ka dheelaa Ibrahim saan ku celinay waay Solskjaer wax technical hadda aqoon ah aan ka ahayn message-kaas dressing room-ka inuu teamka moral siiyay oo uu ka qaaday dagaalkii Mourinho kula jiray ciyaartooyda ما أهني قار مفرحسنا ليه سنجيسيو بوجبا إلفتركود معلكم مفرحسنا ليه already معلكم مفرحسن مليين تاسور تخالط قوي أو سي عدالة عضها دي ودحان معلكم مفرحسن إلا دان هذا الروي كينو كل أسبوع عنكم أو حجارة يا يرتوي باسك مورينيو صارتي أصالشان باسك صار ربتو ليه بروبلمك حليه وعيرتوي ده بروبلمك ديزاير ومجريدي وليه تاسوي عضها أنا وكر أحسن الروي كينو desire energy nin wato raba inuu dagaalamo wax yar ashliyan gas baaska ha khaldo laakiin dagaalana waxoogaa ka arkaa fareerkan isaga laftigiisa dhulka ku xun laakiin uu dagaalamaa inta kale aad waxa la arkay xalkeena sawir xalkeena Pogba oo 9.4 6.74 miya feet ka dheeraanta dadka ugu dheer kamid ah Stalin 5.7 aan inta boodo testada helay soo marka xog soo qoreen this guy needs more this guy doesn't ninkan wax buu rabaa zaid kan ma rabo hami ya jira ilayhin Stalin oo gaaban inta ka dhex boodo testada ha helo that's crazy way marka waxay leeyihiin desire kaas oo kale uu maqan yahay man la dhigi karo taas macallinkii Mourinho kale oo idaacada ka sheegay waxaasay ku warwareereen saasay ku xanaaqsan yihiin wax loo ma jirto Ibrahim Sanchez 12 daqiiqo dheel hal mar tabtal halkaas taa 75 kun pound ku fadhisaa ciyaartii maalinta daad shakuro qaatamiya marka daqiiqada uu sabta la xisaabiye intuu qaat lacag zaad u badan 500 kun qaata ninkaas week taas $500 ama $500 pound taawshadaas halkaas taawsho qalantaadii ani laftigay waa fahmi waay ciyaartaan oo kale Ibrahim marka Sheffield Square sameynaysid waa ina ku bedeshaa maxaa la yiraahdaa Sanchez oo kale leen absiisa hadii teamka hor laga soo raayay Lindegaard ma ku soo cilin hadana su'aalaha ugu badan la soo diinay Solskjaer absolutely wax uu igu qancinayo ma leh Solskjaer maxay ka tahay ma aqaani aqoontiisa zaida u liidaya maalmihii hore kuma degdegi jirin laakiin hadda waxa la at least Ibrahim meel inuu ku qanciyo macalinka at least nacasida Guardiola waxa aad lagu amaanay bedelku sameeyay ciyaarto baraja ah eber in Fernandinho cunun liro sani oo keen Bernardo dhaxdu soo celiyo Bernardo gudqaan iyo waa la qabay bedelkaas markuu sameeyay waa la qabay hada lagu amaanay ani laftirkay waa la qabay waxa uu la qabay adiga waa ninka barajada dhibto so waxa jira marmar maskaxdaas uu isticmaalay top level hatta Ferguson waa isticmaal jiray Arsene Wenger waa isticmaal jiray bedelkan kale hadhow saani meesha uga baahan lahayd hadda isticmaal aqli weyn waaye maadaama teamka ari ahaan ka xoog badan tahay Gundogan say waa dheelay ciyaarahan oo dhan Bernardo Silva gudaha imaanaya oo raacasho badan raacashada meeshaas ma liidato iyo laba Silva iyo Gundogan waaye boss mu sacrifice gareen Stalin as todoba imaanaya
yarkaan saani wuxuu tagaya 11 wayna shaqeysay Sterling 7 ka soo shaqeeyay kubadii baas macaan u dhigay labada gool fiir kubadaas ay u raacooyin inaa stop garaysaa reeb kubada maslaxa inta soo celisid waa kubada sawirka badan laga soo qaaday amaana 1-1-1 may afartii waxaa lagu dhahay oo safan hal u safan afartii nin oo maxaa la yiraahdaa oo leen ku jira leen si vertical وانا باك 4 باك 3 ما ماقان باك 5 تنما جول كساني جيم صع ولي صع جول عجيب طبعا قاب دفاع عدكود انا فاهم سكالميسيغا حتى ادو ديت سوماي ابراهيم waxaa soo dhan muddo kaliiteen ana hada ma balayaabay waxay kala sameeyeen second half waxyaabaha lagu liidaa ciyaartan first half ninki daawada kaama aaminay second half banooniga ka dhacay meesha first half waxay ahayn aggressive enough Man City way naxaysay in banoon beerdareeso shikashanka jaala qaatay waxa qaatay company jaala qaatay you never know waa socotay meesha ku dhamaanayso laakiin hadda waxa imaatay bahashiiba in maxaa la iska soo dardaraayo meeshan banooniga birtu ku dhacay absolutely waa cabir fiican waa baaskan fiirsiyo loo soo wada dheeli sida la isku wada arkay Ibrahim waxa analystayaasha dhan ku soo celcelinayeen wax 4 bil ay ka hadlaayeen baaxadda u dhaxaysa labadan team baaxad weyn u dhaxaysa Solskjaer wuu qiray wuxuu leeyahay difference-gana ina Solskjaer laftigiisa xaslay teamka wuxuu sii qasaya siyaasad inuu qarash fiican loo ogolaado ay mar ay la noqoto ani ahaan haddana xasday wax walba oo sameysay hadii lagu xisaabayo khamaarkaas ma qaadan kartid qasbiyaan Soomaaliya qarash badan u baanta koox waxyaabahaas nuu sii cadeynaya wuxuuna sii galayaa maxaa la yiraahdaa stage halkaas waliba baaska Sterling da waxay soo celisay gaal soo celi baaska Sterling rabaaba Sterling markuu wato wax yar la soo celi bas halkaas kadib iska dhaaf halkaas jooji fiir meeshan dar gaduudkan fiiri 1 2 3 4 hadda laba dhul oo muhiim ah ka beer daroobay Sterling jiiradan haduu ka baasi lahaa Aguero porteri ahaan leed kaasna saanay porteri waay hadda nimankan darmaankii confuse ku keenay kamid tahay inna sanad dheelin darmaan hadda qaybtu ahaa qaybtaas u ahaa qaybta midig waa meesha maxuu ka soo doonay kale Lindelof intuu jooga Smalling booskiis wax jooga Smalling laakiin fiiri ilaa hadda soo waa adduunka waxa ugu xun 5-6 players oo in the box yaa tahay walina waa maxal laha waa laga dhalinaya maxal laha waa laga dhalina wax waliyo waay marka waa la yaabay ajiib isku soo wada duub City tijaabadii ugu dambeysay ama caqabadii ugu dambeysay way ka gudubtay mal dhigi karaa hadda marka loo fiiriyo oo loo doonaysan horyaalka ugu difaacato runtii way ka gudubtay ciyaarta ugu adkeed waay ayadii Tottenham loo qabtay inay horyaalka war ka galo marka maxaa la yiraahdaa labada ciyaar hadii laga reen waaye wixii kale waa wax oo koobka ku raba ah koobka waxa rabo Liverpool hadii shock kala dhaco hadii Burnley kooban ku rabina Allah hadii shock kala dhaco hadii Burnley istaajiyaan Burnley hadii ku istaajiso hadii ku istaajiso Brighton Liverpool koobka raba laakiin shaqadii la rabay way ka soo baxeen inkastoo taas ba shaqo tahay waxa uu maleynayaa kooxaas dhan behind the ball ahaanayaan way qasbayaan waxay ku xiran tahay si jaaladkooda uga faa'iideystaan waxay kaloo ku xiran tahay Liverpool laftirkeeda James Park Goodson maxaa la sheeg James Park tagaan Newcastle St James Park ay laftigeeda taas inay barajo amal iska ilaaliso waa Wolves oo dhimanta dabcan Ibrahim ilaa xadkan labadan koox markaa fiirisid wax walba oo laga rabay labadan koox seasonka bandhiga aqoonta baaska isfahanka macalinka maxaa la yiraahdaa rotationada ay sameynayaan injuries iskaga ilaaliyeen inkastoo Liverpool squad fiican haysan oo aad u nasiib badan yihiin inay front three xataa saddex ciyaar miis gareenin laakiin waxaas dhigi karaa baaxadda ay ka qaateen porteriga u soo musmaarkan kale Van Dijk ay keeneen dhexda labadan koox wax walba oo laga rabay koob lagu qaado way soo bandhigeen haddii koob diido labadan koox wax khalad dhinacooda ka imaaday ma jiro waana markii la analyze full lagu sameeyay seasonka labada kooxba laba koob ay u kala qalmaan laakiin hal mid qaadan doona hadda Champions League horyaalka ka qaadan laba Premier League ka wadaan Liverpool Champions League u qalantaa ma dhigi kari laakiin waxa ka wadaa laba Premier League la kala siiyay u qalmaan laakiin waa ka xuma hal Premier League la ogol yahay marka halka Premier League kan qaata kan kale ma aha inuu khalad galay inkastoo Liverpool la leeyahay jaanisi badan oo ay sanadka halfkiisa beerdareysaa jiro
oo 10 point ay aadi kartay ayadaa ku soo celisay leeyahay qataatadan ayadaa baxarkan soo gelisay baxarkan haduu jiri leen way socon lahayd Man City ayadaa soo nooleysay markaan fiiriyeen ciyaarta uu ku soo bandhigay Etihad Stadium oo la dhahayo beerdare ku sameysay wax ka qaldanaa Liverpool ciyaartaas oo aa ku fees gareynaysid team kaasi khatarsan baas ahaan team kaasi formsan Etihad ku fees gareynaysid Klopp qaabku u dheelay wax aniga oo eedan oo ma haysto marka eedeema kala jiro oo bareejo Liverpool aruusatay oo aan Klopp ku eedanayo waxaan ogeynaa rikoorada kulankan la xiriira Shabalala rikoorada la yaab leh ku jira Manchester City kulankii toddobaad waxay ku badisay garoonka Old Trafford Premier League waa kooxda ugu badan ee Old Trafford ku badisa Premier League sanadii ugu dambeeyay ugu fiicnaan waliba United waxay ku daraatanaysaa 7 kamida staal kulli ugu dambeysay dhamaad tartamada waa cajiib waxaana arintaasi imaanaysaa markii si rasmi loo magacaabay Ole Gunnar Solskjaer oo dhinaca kale hal jeer oo kaliya ku dareystay 17 kulan hore laakiin hadda 9 kulan u dhameystay 7 jeer wax cajiib ah Manchester City 157 gool dhamaad tartamada dhalisay ciyaareedkan Ajax oo kaliya ka badan 159 dhalisay laakiin shanta horyaalay waa weyn oo Holland aanay ku jirin waa kooxda ugu gool dhaliska badan ciyaareedkan Pep Guardiola waa macallinkii ugu horeeyay 3 kulan isku xigta Old Trafford ku badiya isku xigta 3 sano joogaba Premier League waa 3 game uu ku badiyay guud ahaan waa macallinkii saddexaad ee Old Trafford 3 jeer oo Liga ku badiya Arsene Wenger iyo Gerard Houllier oo hore Liverpool wadan jiray ay 3 jeer halkaas ku badiyeen United 12 kulan ugu dambeysay dhamaad tartamada clean sheet ma sameyn ama goosheeda ma difaacan 1971 ugu dambeysay rikoor noocaas ah dhinaca kale Sterling iyo Sane waa labada nin ee kaliya waxa loo yaqaano laba rikoor ama 12 gaare 10 baas iyo 10 gool Sane 10 gool dhaliyo 10 goolna oo baas halka Sterling 17 gool dhaliyo 10 goolna oo baas goolka Sane kamid ahaa waxyaabo cajiib ninka kaliya sida sameeyay horyaalka Eden Hazard oo 10 dhaafay labada dhinacba baasida iyo dhaliska dhinaca kale markii sideedaad uu isbedelay hogaanka horyaalka markii 18aad aan ilaahay horyaalka Ingiriiska labadan loo isku bedbedelay sometimes Chelsea below ciyaareedka Chelsea below fuushay wali waxa laga yaabaa maalin gelinkeed in loo mar isbedelo marka waa si qabanay galabtii laga qabanaa 2002 2002 ugu dambeysay horyaal noocaas hogaankiisa isku bedbedelay ciyaareedkii hore City soo bilowday ugu dambeysay